dhawaana yahayd markii ciidamo horkacay wasiir dawlihi hore ee amniga maamulka Khaatumo Faysal Maxamed Xasan Falalug oo dhawaan madaxweynaha Khaatumo xil ka qaaday ayaa markii ugu horeysay saxaafadda kula hadlay degmada Boocam ee gobolka Sool halkaas uu ku soo badhigay qalab ay ka furteen ciidamo hogaaminaya ka sameeyeen gudaha magaalada Laascaanood gaar ahaan dugsiga Muuse Yuusuf Horaanti bishan ay taalay sanduuqyada komishanka doorashooyinka Soomaaliland sidoo kale waxa wasiirku halkaasi ku gubay warqadihii cod bixinta ay ka qaateen gudaha magaalada Laascaanood taasoo ku sheegay in lagu qaldayo shacabka gobolka Sool sanaagyacan isagoo markaasi ka warbixiyay qaabka ay ugu hirgashay in hawlgalkaasi ka fuliyaan qaybo kamid ah gudaha magaalada Laascaanood wasiirku waxa uu sidoo kale ka hadlay mid kamid ah maxaabiis lagu soo qabtay qalabkaas oo ku sheegay inuu sii daayeen sabab la xidhay maxaabiis u xidhan reer Khaatumo isagoo wasiirku arrimahaasi ka hadlay waxa hadaladiisa kamid ahaa hawlgalkii ay ciidanku ku sameeyeen diiwaangelinta Laascaanood xarunta komishanka guud ee gobolka qalabkeedii indhiinaad ku aragtaan ciidamada iyo qaybo kale ciidamada ka tirsan waxay ku guuleysteen ilaahay ku galaday inay gacanta ku soo dhigaan dhammaan gobolka Sool inaanu soo bandhigno iyadoo aanu gubayno oo aan cadawga kaga jirno waxay oran doonaan oo ay caalamka iyo dadweynahoodaba been ugu sheegi doonaan codayn baa ka dhacday deegaamadaas Cayn iyo Sool waxaanu cadaynaynaa inaan arrintaasi wax ka jira aysan jirin 60,000 ama 70,000 bay sheegan doonaan inay ka codeeyeen haddii ay taasi jirto sida gobolada kale oo codayntu ay ka shaqaysay ay xafladaha ugu dhigayeen bay ugu dhigi lahaayeen taasi waa makhraati waxay ku soo qabteen ciidamada tani askartii ilaalinaysay qaybo ka mid ah sida sarkaalkii haystay xarunta bulshada reer Boocame wax garadka bulshada qaybaheeda kala duwan wada tashi aanu la samaynay waxay noo soo gudbiyeen inaanu bilowno inaanu maxbuuskaas xornimadiisa u sii dayno oo aanu furno layn cusub annagu aan waxba yihin baladayn rag ka tirsan deegaamadan Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay ku abaatiyeen jeelashooda waanu ogey munaasibna way ahayd inaanu haysano balse waxaanu furnay wada cusub oo aanu ku furayno arrintani way socon doontaa inaanu maxaabiista isku dhaafsano haddii ay arrinta ka jawaabi waayaan oo ragga iyaga ku hagaajiyay oo siniin mininka jeelashooda ku jira ay soo dayn waayaan waxa la yiri hawshani way soconaysaa waxa la yiri caana xundhigato adna ku murugii dhinaca kalena waxa wasiirku ka hadlay xilka qaadisu madaxweynaha maamulka Khaatumo Faysal Cali Khaliif Galeed uu ku sameeyay qaar kamid ah golaha wasiirada Falalug qayb ka yahay xilka qaadis uu sameeyay madaxweynuhu Cali Khaliif aniga iyo xubnaha aad iyo aad baan arrintaa ugu qanacsanna maadaama aanu xilka madaxweynuhu naga qaaday shaqada tan iyo kuwii ka horreeyay wayna qanacsaa haddii ay makhaatin noo furtay inaanu bulshadeeda wixii aan ugu dhaaranay aanu ka shaqaynayno xilkiina aanu ku weynay aad bay noo qanacsaa walaaba xagga kale bulshada reer Khaatumo waxay u furtay makhraati cad oo meesha wax loo wadaa amase odaygu hayaanka uu geliyey oo reerka ugu raray meesha laba deegaanka bay cadaysa xilka qaadistan lagu sameeyay wasiir dawlaha amniga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo ayaa ku soo beegmaysay xilli wada hadallo socday maamulada Khaatumo iyo Soomaaliland hayeeshee madaxweynaha maamulka Khaatumo iyo xubno kamid ah xukuumadda soo haatan shir uga socdo magaalada Balcad oo sida la sheegay inay tahay sidii loola hadli lahaa Soomaaliland ayaa xilka looga qaaday labadan wasiir waxaana hadalhaynta ugu badan ay ahayd xilka qaadistooda in loo aaneeyo qalalaasa ay ka galeen wada hadallada u bilowday Khaatumo iyo Soomaaliland Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidaanshe telefishinka caalamiga ee Kalsan degmada Boocam ee ka tirsan gobolka Sool